السلام عليكم دمان غير الصومال مالك استو جوجتي كسو دواada channelka daawanaysa waa Nuuridiin official caawan waxaan yahay wada Soomaaliyeed oo ka sheekeeya dhibaatadii ka soo martay markuu taajirahay iyo markuu hadda faqiiray farqiga u dhaxeeyo waxa dhashay dhulka loo martiyaa ilmaha markii la dhalayo mustaqbalka waxa loo dhalaa biri ha ku anfacaan laakiin salaaska ma dhalo ilmaha markaa dhashid waa inay markaa gabowdid ku daryeelaan marka insha Allah waxaa ka rajayaa odaga Soomaaliyeed 8 caruur oo dhalay ma sha Allah ilaahay waa caruur fiican oo siiyo oo badan ma sha Allah marka insha Allah inay u damqadaan in xariistu u fiiriyaan ee aabood insha Allah waxa uu dib u xasuusanayaa xilligiisii wacnaa ee 70-meeyadii kolkaas oo uu ahaa nin taajirnimo iyo deeqsinimo isku darsaday garaashkan yar oo waxa waalid Qur'aan u ah iska aw gaarinta danta ayaa biday in halkan uu fariisto waayo ma hayo wax shaqo isagoo wax ka suga kaliya dadka u damqada markay agmaraan halkan oo uu joogo oo ah wadada Shaneema Afrika oo kala qaybisay degmooyinka Xamar Jajab iyo Xamar Weyne ee Muqdisho waxa wehel u ah boorka iyo nadaafad darada inkastoo adduunyada ay tahay mid wajiye badan haddana 70 jirkaan ha nooga sheekeeyo sida qaninimadiisa oo faqriga iskugu bedelay wallahi berigii hore waxaan ka ahay diiq libaax adduunkan ka maanta ma haldi isaan way hol aan mootooyin lahayd tumiku mooto bishkid yalan lahayd dukaamka wax ka soo baaray tusaale iyo casharad badan oo laga bato taajir maanta waayo jabrooti ku quraad waa taajir waa nolosha adduunyada iska saasa 18 caruur oo dhalay ma sha Allah ilaahay waa barakay caruurtiisa caruur sii dhalayso laakiin maxay dib ku dhigeen ilaa hadda xoori wax ila soo xariir amba wax daryeel amba wax aab ma nabad qabta amba aab sidee tahay soo yiraahdo ma hayo waa soo qaaday waa sii gudiyay sidan ah Shaneema Afrika jooga garaash malaha markaa garaashan lahay wax walba mootooyin lahay shaqaalayaal badan lahay ugu yaraan 30 gaaraan hantideedii Sacuudi anigu waxa inta waxaan aagtay waxbaan dhigtay wixii yar walaalkayga cunay oo taani marka xagatay lacag waa ku taqay hadana dad kale inta sii cunay meeshan oo ku maqan weli way xasuustaan dadka xilligiisa hodanka ahaa caruurta uu gacanta u furay iyaga oo dib u milacsanaya barisamaadka iyo sida uu ahaa wallahi nin waxa uu ahaa nin oo tijaaro wax iska haysto u ahaa anaga waa yareen oo arday ahaan meelahan ordi jirnay oo gacanta naga qabo jiray oo nin meeshan ugu sareeyo ugu fiican u ahaa adiga haddana maanta waa kana ilaahay amarkiisa waa kana waa u jeedinba laakiin waxa uu ahaa nin aad iyo aad u fiican oo meeshuu fariisto umada iska soo doonayso macnaha qofku arko wax ka bixiyo qofku arko wax siiyo aw ahay marka hadda maxuu bixiyo ama maxuu iska dhaafaa asiga waa ingegnaa waa ku qanacsan yahay qadarta alle balse sheekada murugta iyo warkutaalada ah ee aan qalbigiisa ka goynayaa ah in aysan xitaa soo xasuusan 18 caruur oo uu dhalay sida uu inoo sheegay kuwa uu dalkii dibadda ku nool caruurta adiga 18 ama way wax oo aniga daryeelayo ama idanay ma jirto waa 18 caruur دارو ما خبط دانو وحي دلينا واحد دلونا انت وضب اي ما قبل ما قبل ويل تمني شو هذا سدح كبدو بنزيد اسمه بكره حتى كم سوعه ما بالسيوه ميدها اي حاضر كم خوان ما بكور خوان هذيك مره استمر يا هذيك ما وعده مر ما هذا كاتا بعد حتى موبايلكم كقبان nolol walba oo ku soo marta waxay leedahay cashar iyo tusaalooyin laga barto si aan ugu kasoomin dhibaatadii aad ka soo aragtay kani waa taajirkii haddana laga yaabo inuusan helin xitaa jabrooti ah maalin dhan maxamed boota Yuusuf Risaale TV Muqdisho tadoodaga sayid maskiinka awlaad iyo maal alxamdulillah waa kusoo taabay afar xaas oo ka dhalay caruur ما شاء الله سيدو شيغاي عروفتي عروفتي دلوس إلهي وبركي لكن سادة دريالكم هستو إن شاء الله
waxaa u rajaya in ilaahay waalidnimada tuso channelkaa daawanaysa waa nuuridiin official baliis haddaan ugu cusubtaa subscribe muuqaalkaana sii sheer garay insha allahu waxaana ku mahadsantaa daawashadaana daawatay